balcadoo dhowr kiiloomitir u jirta muqdisho ayay saaka qabsadeen dagaalamayaasha al-shabaab muuqaallo hordhaca oo halkaasi laga helay ayaan ku tusayaa ayadoona garoonka diyaaradaha ee muqdishona lagu weeraray tiro hoobiyaala xilli muqdisho uu imaanaya abiy axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya hadda abiy waa saaxiibka waa xabiibka ummadda soomaaliyeed iyo sidoo kale walaalka ummadda ayadoona maalmo ka hor muqdisho sidaan laga lahaa abiy axmed uuna horboodayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud laakiin xasan maanta wuxuu dadka ku qasbayaa inay si weyn u soo dhaweeyaan abiy axmed أبي أحمد والله أنك اللي بحيانا نساسك وعنينا hadda abiy axmed ayaa qaabkan muqdisho laga soo dhaweynaya ayadoona la xiray dhammaan wadooyinka magaalada caasimadda ee muqdisho hooyooyin ayaa ku umulay wadooyinka muqdisho ayagoona gaari waayay isbitaalada magaalada sababa la xiriira soo dhaweynta abiy axmed oo loo xiray dhammaan isku socodkii dadweynaha iyo gaadiidka waxaana sidoo kale dadka loo caburinayaa si weyn ayadoo taasi ay jirto ayaa tiro madaafiica lagu weeraray gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kuwaas oo aan la ka saynin halka ay ka yimaadeen iyo cidda soo tuurtay waxayse muujinaysaa habacsanaanta xagga sirdoonka iyo ammaanka ee ka jirta magaalada muqdisho balcad oo dhowr kiiloomitir u jirta waxaa qabsaday dagaalamayaasha al-shabaab muuqaallo hordhaca oo dadka deegaanka si qarsoodi ay u duubeen waxay muujinayaan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo aad u tiro badan oo gudaha u soo galay magaalada balcad oo afka u saaran magaalada muqdisho dad badan oo falanqeeya arrimaha ammaanka iyo siyaasadda waxay shaki weyn ay ka muujinayaan sida dowladda soomaaliya ay ku ogaan weysay tiro intaan la ego al-shabaab ka tirsan oo soo galaya balcad iyo weliba wadooyinka ay soo mareen ayadoona la og yahay deegaanada balcad ka agdhow dhammaantooda inay haystaan ciidamada dowladda soomaaliya waxaase halkan la gelinayaa shaki weyn dadka deegaanka ayaa ku baraarugay al-shabaab oo qabsaday magaalada balcad gudaheeda waxaase dad badan hadda cabsi ay ka muujinayaan deegaano ka agdhow muqdisho in sidan oo kale al-shabaab ay u qabsadaan dowladda soomaaliya ayaa dayacday shacabka balcad ku dhaqan iyo weliba kuwa koonfurta soomaaliya ku dhaqan dhammaantooda waxaase xasan sheekh uu ku mashquulsan yahay soo dhaweynta abiy axmed kii shalay ummadda uu u sheegayay inuu yahay cadow doonaya inuu qaato baddeena waxaase xasan uu sheegaya cid walba oo la macaamishay etoobiya iyo abiy axmed in loo aqoonsanayo cadow ka taran al-shabaab sida hadalku uu dhigaya xasan sheekh laakiin hadda meel walba muqdisho ah waxaa suran sawirka abiy axmed ceeb ma aha soo dhaweynta abiy xasanba waxaa lagu soo dhaweeyay cabdisababa laakiin bahdilka noocan oo kale ah ayaa ah mid aad ceeb u ah in magaalada muqdisho oo dhan dadkii loo xanibo abiy axmed dartiisa meel walbana lagu dhejiyo sawirkiisa inuu yahay qof weyn oo soomaali dhexdeeda sharaf iyo weliba cizi ku leh ninka doonaya in badda soomaaliya uu qaato al-shabaab ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ku soo siqaysa deegaano ay haysato dowladda soomaaliya inkastoo dowladda saraakiisheeda iyo madaxda dowladda qaarkood aysan daacad ka ahayn dagaalka lagula jiro al-shabaab waxaase xusid mudan in saraakiisha iyo ciidamada dowladda daacad ay ka tahay dagaalka laakiin ma haystaan hoggaan aad u wanaagsan oo hoggaamin kara dagaalka al-shabaab lagula jiro taasoo jab ku ah ciidamada qalabka sida ee soomaaliya